madaxeedkii wadamada midowga Afrika ee toddobaadka lagu soo gabagabeeyay magaalada Addis Ababa ayaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen nabadgelyada, xasiloonida, horumarka dhaqaalaha iyo kordhinta wax soo saarka beeraha. qodobadaasi tiirdhaxaadka u ahaa horumarinta Afrika ayaa u muuqday kuwo si mugla u taabanaya wadamo dhowra oo ku tiirsan webiga Niil. waana sababta keentay shir gaar ah in ay yeeshaan madaxda wadamada Suudaan, Masar iyo Itoobiya. barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ayaynu arrimahaasi ku lafaguraynaa iyadoo ay aqoon-yahano dhowrihi qaadaa dhigi doonaan khilaafka ka dhasha biyaha webiga Niil oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ku leh wadamada ku yaala geeska Afrika oo xataa qaarkood aanu webigu soo marin balse xiisada ka dhalataa ay saameyn ku yeelato. waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacad ku taala dalka Canada oo faahfaahinaya kulanka khaaska ah ee ay yeesheen madaxda wadamadaasi. sahray waxa weeyaan waxay ku kulmeen Addis Ababa oo shirkii Afrika uu ka socday baa waxa ku kulmay Haile Mariam Desalegn oo ah Prime Ministerka Ethiopia iyo madaxweynaha Egypt Abdulaziz Fattah al-Sisi al-Sisi iyo Suudaan madaxweynaheega Umar Bashir. sababtuna waxa weeyaan khilaaf badan baa ka jira arrintan Niilka ka jira oo waata Ethiopia ka dhisaysa dam weyn oo 4 bilyan kaga baxayaan oo ay doonayaan inay ka soo saaraan koronto waa kuwa ka dhisaysa magaranaysa Niilka afkiisa. Suudaanna wuu sii maraa Niilka oo iyadu runtii waxa la iska yarabtaa inuu dhiso Ethiopia dhisto meesha oo xogaa fatahaadu ka yareeya laakiin wadanka aad uga soo horjeeda arrinta waa Egypt oo ka baqaya 25% in marka la buuxinayo webiga ay wax u dhinto. sidaa darteed way shireen waxay ku heshiin arrinta la qaboojiyo in wasiiradooda tamarta iyo biyuhu ay kulmaan muddo bil ay ku keenaan warbixin isla markaana company Faransiis ayaa loo saaray oo soo baarayba dhibaatada meesha ka dhici karaysa. marka runtii inay qaboojiyaan bay doonayaan. Ethiopiana siyaasad aad u degan bay ciyaaraysaa hadda. maxay tahay marka faa'iidada ugu jirta Suudaan ay u doorbidaysaa in Ethiopia ay biyo xireenkaasi samaysato oo ay biyuhu ka yaraadaan dhinacooda? Suudaan waxay ka faa'iidaysaa had iyo jeer maadaama ay ku soo dhowdahay meeshii webiyadu ay ka soo baxayeen fatahaad badan baa ku dhacda Suudaan oo Niilku u keenaa aad iyadu ugama faa'iidaysato sida Egypt markuu qaboobo ee uu faafo beeraha buuxinaya bay gaadhaa. sidaa darteed labadoodu laba ujeedo kala gooni ayay leeyihiin oo Suudaan iyo Egypt iyo magaranaysa Masar ay leeyihiin. marka way iska rabtaa Suudaan in Ethiopia dhisato arrinta isla markaas korontada ka soo bixi doonta webigaas marka la sameeyo dhaamamkaas waxay gaadhi doontaa Soomaaliya iyo Suudaan iyo xataa Uganda ba inay gaadhaan laga yaabay koronto cusub jaban ay keento. marka waxaasa iswada khilaafsan oo magaranaysa is eegayaan. xurgufta siyaasadeed ee ka dhalatay webiga Niil maaha arrin ku cusub wadamadaasi balse waa ciriqaan bogsan oo markasta ku soo kacdooma wadamada sida gaarka ugu tiirsan webigaasi. Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed oo haatan ka tirsan macadka cilmi baadhista dalka Sweden aqoon durugsanna u leh biyaha ay wadaagaan wadamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa inoo haya taariikhda webiga Niil. webiga Nile wuxuu ka soo kala bilowdaa laba meel oo kala duwan. meel waa wadamada haweenka waaweyn dhulka la yiraahdo oo ay ugu horeyso harada Victoria inkasta oo Victoria meel ka sii shishaysa ay ka soo bilowdaan faracyada webiyada markaasi webiga Niil ku soo xirmaya. marka dambe dhulkaasi waxaa kale ka jira harooyin kale oo waaweyn oo runtii ka yar harada Lake Victoria laakiin ayaga laf ahaantooda harooyin waaweyn ah oo isku wada xiran oo wadamada Uganda iyo Burundi iyo Rwanda iyo Congo qaybo kamid ah soo dhexmara kadibna soo gala markaasi webigu wuxuu markaas soo galayaa wadanka maanta la yiraahdo South Sudan oo bariga hore Suudaan ka tirsanaan jiray. dhulkaasi markuu soo galo ayuu wuxuu noqonayaa webiga Niilka cad. marka waxaa jira Niilka cad iyo Niilka buluuga ah. Niilka cad oo dhinacaasi South Sudan soo dhexmaro wuxuu soo dhexmaraa dhul ay biyuhu fariistaan oo Suud la yiraahdo oo halkaasi ay ka dhacaan markaas oo mibax aad u fara badan oo webiga uu biyo fara badan halkaasi ku lumiyo. kadibna wuxuu webigu soo galaa wadanka Suudaan la yiraahdo oo faracyo kaleeto oo ka soo raacay South Sudan oo la kala yiraahdo Bahar Jabal iyo Bahar Al-Ghazal iyo webiyo kale oo ayaga la faahantooda ka soo daadega buuraha Ethiopia ayaa waxay ku kulmaan meesha la yiraahdo magaalada
khartoum oo alniileyn ayaa dhulkaasi la yidhahda oo labada niil ayaa ku kulma niilka cad iyo niilka buluuga ah ee ka imaado harada Tana ee dalka Ethiopia ugu weyn oo ah meesha ugu badan ee ay webiga niilka uu biyaha ka helo ay tahay dhulka Ethiopia kadibna wuxuu soo galaa wadanka Masar ilaa uu kasoo gaaro magaalada Qaahira oo uu badda kaga shubo badda Mediterranean-ka kaga shubo dhulkaas Masaarida dhererka webiga waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 7,000 oo kilomitir inuu soo socdo wuxuuna ku fadhiyaa dhul baaxadiisu ay la eg tahay 3 milyan oo kilomitir in ka badan marka dhulka wadamadaasi soo maro markii hataa la fiiriyo dhinaca juqraafiyadda waxaa jira kala duwanaansho aad u weyn oo dhinaca roobka ah oo webiga Nile dhulka Ethiopia waa meelaha ugu badan oo ka helo roobabka halkaasi ka jira inkasta oo marka la soo gaaro dhulka Suudaan u dhaxeeyo iyo Masar ilaa iyo dalka Masar intiisaba aysan wax roobab ah aysan ka diin marka webiga Nile waa webiga adduunyada ugu dheer tirada biyaha uu wadano waxay la eg tahay inta la qiyaasay 84 bilyan oo mitir kubik oo biyo ah ayuu wadaa oo ah biyo 10 jeer ka badan isku geynta biyaha webiyada Soomaaliya ee Jubba iyo Shabeelle baaxadda la tilmaamay ee webiga Niil iyo xaddiga biyaha ay ka helaan dalalka uu dhex maro ayaa keentay in la kala xigsado oo waddan kastaaba ku dadaalo inuu biyo ku filan ka helo hase ahaatee khilaafku wuxuu badanaa gaar ku yahay labada waddan ee Masar iyo Ethiopia taasi oo ay sabab u tahay webiga oo qayb ahaan ka soo bilaabma dhinaca dalka Ethiopia Masarna ay walaac joogto ah ka qabto in Ethiopia ay moos adag u dhigato biyaha webiga inta aanay u gudbin dhinaca dalka Masar sidaasi aawadeedna uu hoos u dhac ku iman karo wax soo saarka iyo dhaqaalaha Masar oo in ku dhow 50% ku tiirsan webiga Niil Masar waxay mar kasta ilfoojigan ku eegtaa dhaqdhaqaaqyada Ethiopia halka Ethiopiana ay u aragto inay marka ay doonto cunaqabatayn karto horumarka dalka Masar dowladda Masar ee webiga Niil waxa uu ku salaysan yahay in ay weligood ay isticmaali jireen webigaasi doodoodana waxay ku salaysan tahay historical right oo ah in xuquuqda ay u leeyihiin inay isticmaalaan webigaasi uu yahay mid taariikhi ah dhinaca kale dowladda Ethiopia waxay iyaduna ku doodeysaa in biyahaasi intooda badani oo ah 85% ay ka soo bilowdaan dhulka buuraha Ethiopia labada wadan mid kastaaba gaarkiisa ayuu uga digtoon yahay khatarta kaga iman karta dhinaca kale mana laha xuduud dhinaca dhulka ah oo ay wadaagaan amaba ay iskaga gudbi karaan taasina waxay keentay in dal kastaaba xulufo ka raadsado wadamo kale waa kan Professor Xuseen Warsame oo arrimahaasi sharxaya Ethiopia markii ay waxoogaa la culowdo Masar waxay ku hanjabi jirtay in biyaha joojin doonto marka khilaafyo badan baa jiray taasoo Soomaaliyana soo gaari jirtay oo Soomaaliya had iyo jeer ay Egypt isku daytay Soomaaliya taageerto si loo yar cadaadiyo Ethiopiaanka marka taariikhdaasi muddo markay soo socotay Suudaanna imika dan badan kama sii lahayd Masar oo hadda waxay Suudaan ku xidhan tahay Turkiga Sacuudiguna wuxuu ku xidhan yahay Egyptna way isku xidhan yihiin oo xulafaad moodaa Masar waxay muddo dheer xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed bala lahayd Soomaaliya sida uu sharaxayo Maxamuud Jaamac Xamuud oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo ku sugan dalkan Mareykanka Masar xiriir soo jireen bayna ka dhaxay oo aad u fog oo ku salaysnaa maxay tahay xiriir baa mustari han noqoto oo beeyada iyo ayna ka soo doonan jireen oo maalaha hadaad aragtid iyo xiriir badan oo waxyaalo badan oo markaas hadaad iban dhaqankeena waxa la yiraahdaa maxay tahay kelimadaha qaarkood iyaga ka yimaadeen marka xiriirkeenu aad u foga wada xiriir ku xidhan badda cas ku salaysnaa Ethiopia iyo Soomaaliya markay istileen ama ay dagaalameen maxay haydan tahay Masar kala hayd inay Soomaaliya hub ku caawiso Masar weligeedba waxay isha ku haysay inay xad lama leh Ethiopia xad lama leh ay ugu hanjabi karto inay ku soo duulaysiin kale hadartaba waxaan jabtaa laakiin waxay Soomaalida waxa loo isticmaalay xuxis inay ku xuxiso inay halka kan ay dhibaato kaga sameyn karaan Soomaalida Ethiopia haday danaha masaarida laga shaqeynay marka taasi sigistiskii iyo bay ahay wadcigii way isbedelay hadda ko Soomaali oo xoogan maaha Soomaaliya marka ay iyagu doonayeen 60-gii iyo 70-skii iyo Soomaaliya power bay ka ahaayeen maxay tahay Africa military power bay ka ahaayeen hadda laakiin
waxyaalo badan oo kala dhacay innagii baa kala furanay marka innaga waa iscunayna dee qolo kale wax ma tari karo masar waxay la heshiisay marka Eritrea oo iyagu xiriir xad la leh Ethiopia siday hal meeshii inagu aynu geli lahayn ayagu u galaan waan gartay markaad eegto danaha siyaasadeed ee Soomaaliya midkee u wanaagsan baad leedahay inay Ethiopia ku dhawaato Ethiopia iyo inay Masar ku dhawaato inaga Soomaaliya waxa u wanaagsan nabad horta number 1 inay iyagu heshiiyaan oo markaasna jaarka ay la leeyihiin jaarkoodana nabad kula noolaadaan because waxa la arkay ilaa 27 years kii ugu dambeeyay oo Soomaalida inkastoo qax iyo ay ku yimaadeen misna opportunitieska ay heleen Soomaalidu dawladaha dariska ayna ku ah inaga xagga baamistri qabsanay Kenya Ethiopia nafteeda maadaama dareenka siyaasadeed ee labada wadan ee Masar iyo Ethiopia ee ka dhashay webiga Niil uu yahay mid joogto ah waxaa jira heshiisyo kala dambeeyay oo markasta oo ay xaaladoodu kululaato dhexmara labada dhinac waxa inoo sharaxaya Maxamed Xaaji Maxamuud oo ah aqoon-yahan ku sugan dalka Britain heshiisyada waxa la galay 1929 iyo 1959 labada jeer baa la kala galay heshiisyadaas waxay sheegayeen markaa waxa ugu tun weynaa wadamada inta badan waa la haystay wadamada Afrika waxa ugu tun weynaa waxay ahaayeen wadanka Sudan oo iyagu iska yaraa oo inta badan aan xoog weynayn laakiin muuqday Afrika ka dhex muuqday iyo wadankii markaa ugu weynaa Afrika oo wadanka Masaarida ah marka labadaas waxay qaateen qaybtii libaax heshiisyadaas ku qaateen wabigana waxa aad uga faa'iideysta oo dhaqaalahooda dhan iyo ilbaxnimadoodu ay ka bilaabanto 5,000 sanadood ugu dambeeyay ka faa'iideysanayay ciddii doontaba ku noolaatee wadanka Masaarida dadkii ku noolaa ayaa ka faa'iideysanayay haddana ka faa'iideysto waxa ugu badan ka qaata hadda Ethiopia waxay faraha ku haysaa oo dhamaadba ku dhow biyo xireen aad u weyn oo lacag badanina ay ku baxayso waana arinta la oran karo inay soo cusboonaysiisay xiisadan siyaasadeed ee labada wadan maxay tahay faa'iidada Ethiopia ay ka helayso biyo xireenkaasi waa bilaabada Ethiopia waxay u baahan tahay waxay tabarta ka dhalayso inay daamka weyn ee Renaissance daamka la yiraahdo ee 4 bilyan iyo 800 milyan ee dollar ku kacaya boqolkiiba 60 ka hadda dhamaaday ay iyaduna u baahatay inay samayso marka heshiis bay wada galeen haddana mar labaad 2015 wadamada Ethiopia Sudan iyo Masar oo ay ku heshiiyeen in daamka la sameeyo Ethiopia waxay ballan qaaday daamkaas in wax dhibaato aan u geysanayn laakiin Masar taa way aamin weyday 2 bilood ka bacdi isla sanadkii 2015 bay haddana soo rogaal celisay khilaafaad u balaaran baa ka taagan daamkani webiga laga soo faruurayo biyihiisu waxa noqonayaa daam aad weyn oo noqonaya daamka adduunyada ugu waaweyn lacag fara badan oo sidaan hore u sheegay 4 bilyan iyo 800 milyan oo dollar oo waliba wax la jiraan ayaa ku baxaysa dabcan waan garan karnaa lacagtaas in aanay Ethiopia awoodeeda dhaqaalaha aanay lahayn lacagtaas waxay ka imanaysaa wadamo shisheeye ay ka imanaysaa waxaana lagu munaafacaadsan doonaa Ethiopia uga faa'iideysan doontaa dhinaca beeraha lagu waraabiyo sidoo kale tamarta ka dhalata nalka ee hydroelectric la yiraahdo iyo biyaha oo in laga cabaa oo dabeeto taasina manaafacaad ku dheer in la isticmaalo intaas isugu jiraan meelaha ay ka faa'iideysanayaan biyaha si loo doonayo in daamkan ay uga faa'iideystaan Ethiopian kulaal danaha dhaqaale waa kuwa inta badan abuuro dana siyaasadeed taasina ay keento isxulufaysi dhexmara wadamo waaye hore fiintu dhex mari jirtay Faysal Cabdi Rooble oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan dalkan Mareykanka ayaa maray VOAdu wax ka weydiisay waxa haatan soo cusboonaysiiyay xiisada Masar iyo Ethiopia wuxuu ku macneeyay inay haatan Masar u cadaatay damaca Ethiopia ka leedahay webiga Niil horta arrintan muddo way ka soo shaqeynayeen labada dal oo ah Ethiopia iyo Masar muddooyinkii ugu dambeeyay gaar ahaan xilliyadii intaan malas dhiman ka hor waxaad mooday inay ku heshiiyeen oo Ethiopia ka damaanad qaaday in biyaha ka imanaya dhinacooda aanu markay soo gaadhaan Masaarida waxba aanu ka yaraanayn muddo badan arrintaas la isku ogaa Egypt waxaad moodaa ama Masar in shakigu ka yaraaday hadda se arrintii waatan soo rogaal celisay oo Masar ay labadii dal ee wadan uu ka imanayay biyuhu oo ah Sudan iyo Ethiopia labadiiba aad moodo inay isdhinac mareen marka runtii waxani waa wax muddo dheer soo socday webiga Nile intii hore oo dhan taladeeda waxa gacanta ku haysay Masar laakiin hadda Ethiopia xoogaysatay oo diyaar u ah inay iyana wax ka qabsato waxaad moodaa afkarashadaas inuu hadda soo cusboonaaday gaar ahaan markay Masaaridii ay u cadaatay in barnaamijkii Ethiopianku ay bilaabeen uu yahay mid hadda hirgelaya oo kharash iyo wax kasta loo hayo dhamaashana ku dhow
xulufaysiga siyaasadeed kuma koobno oo keliya wadamada Afrika. Galaangalka dalka Turkiga ee qaaradda iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan wadamada Khaliijka ayaa isna haatan u muuqda mid diiradda ka duway khadkii ay hore u saarayd, waxaana bilowday xulufaysi qaab cusub leh. Waa kan mar kale Faysal Cabdi Rooble. baryahan waxa soo baxay Turkiga oo isaga qudhiisu aad u cadcad gaar ahaan gobollo badan oo Afrika ka mid ah. marka waxa dhacday in uu Suudaan Turkigu xiriir la yeeshay, waliba isagoo markaa hadda la sheegayo in saldhig uu ka dhisayo meel badda cas ku dhow. taasina ay isku soo dhaweysay Suudaan iyo Turki. Etoobiyana markay aragtay Turki iyo Suudaan oo isku dhow, Turki iyo Masaarida iyo Carabtuna aanay isku fiicnayn, aad mooday in Etoobiya qudheedu dareentay inay hadda miciin heshay aan ka baxsan wadaxaajoodkii ay Masaarida kula jirtay oo keliya aan ahayn, laakiin hadda buur ay ku tiirsan karto oo Turkiga ah, iyadoo marka ka faa'iideysanaysa is-afgarashawaaga cadawtinimo u dhow oo taariikhi ah oo Turkiga iyo Carabta dhex yaalay. aad mooday Etoobiya hadda inay ku dhex dhacday, arrintaasna ay maalayso. Saldhigyada militariga ee wadamada shisheeye ayaa iyaguna ku soo badanaya dhulka Soomaalida ee geeska Afrika ku yaala. Taasi waxaa loo arkaa inay ugu wacan tahay juqraafi ahaan dhul istiraatiiji ah oo wadamo badani danahooda ka ilaashan karaan. waa kan mar kale Maxamed Xaaji Maxamuud. Geopolitical proxy war waxa la yiraahdo ama in dhulkan la isku haysto strategic uu yahay dhulkani oo wax jira weeyi. waa runtaas saldhigyo fara badan baa laga samaynayaa oo Eritrea laga sameeyay, Imaaraadka ka samaystay, Somaliland Imaaraadka iyagana ka samaystay, sidoo kale Turkigu wuxuu ka samaystay Soomaaliya saldhig ugu weynaa oo dabcan oo $50 milyan ay galeen ayuu ka samaystay. marka waad arkaysaa in meelaha loo soo socdo Mareykankii Djibouti buu joogaa, China iyo Djibouti buu joogaa. marka mandaqada saldhigyo fara badan baa dhinaca ayaa laga samaynayaa. xaaladda ugu badan ee Turkiga iyo wadamada Carabta ama wadamada Khaliijka ka dhaxaysana waxa weeye wadanka Turkiga oo aaminsan in inqilaabkii berigii dhaweyd dhacay ka dhacay Turkiga ay ka dambeeyeen Abu Dhabi iyo waliba qolada la yiraahdo AKP-ga Kurdiyiinta la dagaalamay inay hubeeyaan qoladaasi Abu Dhabi hubeyso iyo Abu Dhabi iyadana qudheeda aaminsan in qolada Muslim Brotherhood la yiraahdo ama akhwaan muslimiinka ee Masaarida ka dagaalamta inay aad u baagareeyaan oo dhaqaale fara badan siiyaan dalka Turkiga. marka meelaha la iska hayaa waa halka inta badan wadamadana waxay isku hayaan dhaqaale Afrikana marka la soo tagayo waxa weeyaan in qoodihii la sii muujiyo oo la sii xoog weynaado dhaqaale far badan laga helo. sababta uu Turkigu caawinaya waxa weeyaan iyaguba waxay caawiyaan dhibaatooyin Turkiga dhex yaala oo Kurdidu ay kamid tahay. isla markaa waxa loo wixii Carab ka soo horjeedo dhan uu caawinaya dhaqaalana uu kala soo baxaya. dabcan dhinaca dhaqaaleed waxa uu weydiisay wadamada Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi iyo South Africa oo la isku yiraahdo wadamada EAC-ga la isku yiraahdo dhaqaaluhu aad buu wanaagsan yahay, laakiin khilaaf siyaasadeed baa Kenya oo kale ka jira oo doorashooyin ay ka dhaceen 2017. Tanzania way degan tahay, Uganda qudheeda khilaaf baa ka jira, laakiin xoog waxa ku haysta Yoweri Museveni baa ku haysta. Ethiopia 2015 doorasho ka dhacday iyada dhaqaalaheedu aad buu korayaa, laakiin khilaaf gudaha oo fara badan ayaa jira. sidoo kale Djibouti hadee doorasho ayaa ka dhacday, laakiin haddana saas ay tahay doorashadii labaad baa soo dhow oo mucaaradkii way urursanayaan, laakiin mar labaad haddana iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad waxa la filayaa inuu ku guuleysan doono xisbiga Ismaaciil Cumar Geelle hogaaminayo. marka mandaqada si guud oo ballaaran u eegto waa run adduunyadii baa soo faragashatay, aad bay xasaasi u tahay. waxyaabaha ugu badan ee la isku hayaana meeshan waa strategic oo badda casiir baa ku taala, Mediterranean-kii baa qayb weyn kaga yaala, wadamadana way soo korayaan oo dhaqaaluhu wuu korayaa, khilaafkii siyaasadeed uu sii ballaaranaya. marka mandaqada markii si guud loo eego Soomaaliduna ku jirtee waxay noqotay meel aad u xasaasiya waqtiga haatan la joogo wala saaray. abaaraha soo noqnoqda, cimilada adduunka isbedelaysa iyo colaadaha weli ka taagan wadamo kamida qaaradda Afrika ayaa saameyn muuqato ku yeelanaya deganaanshaha siyaasadeed iyo nolosha dadka ku nool wadamo badan. waa kan Dr. Cabdillaahi Cilmi Maxamed. xaqiiqdii gobolka geeska Afrika guud ahaan iyo wadamada webiga Niil oo maro oo idil mashaakilaadka ku soo socda waxa ugu waaweyn in tirada dadkoodu ay aad u kordhayso oo ay dhowr sano gudahooda ay noqon karaan 500 milyan oo qof oo ku nool dhulkaas, iyo in macnaha isbedelka cimilada adduunyada ee socda ay dhici karto in roobabkii la fili jiray ay intii hore ka yaraadaan amaba ay ka bataan oo halkaas ay ka dhashaan fatahaadyo iyo abaaro aanan horey loo arkin. taasi waxa ay markaasi qasbaysaa in wadamada geeska Afrika iyo kuwa webiga Nile-ka uu mara intaba
ay sameeyaan wada shaqayn aanu hadda ka hore u dhicin oo loo baahan yahay inay ka fikiraan tirada dadkaasi ay sii kordhaysa iyo isbedelka cimilada adduunyada oo noqon kara mid si aada u saameeya wadamada ku yaala geeska Africa iyo dalalka webiga Niil u maray intaba. Siyaasad hufan oo ay dawladuhu la yimaadaan ayaa inta badan lagu maareeyaa mashaakilaadka ka yimaada cimilada iyo danaha siyaasadeed ee ay wadamada caalamku ka leeyihiin. waana kuwa markasta isla bedela marxaladda taagan. waa kan Professor Xuseen Warsame oo faahfaahinaya saameynta ay Soomaaliya ku leeyihiin siyaasadaha ay wadamada qaarkood isku hirdiyayaan iyo sida ugu haboon ee looga faa'iideysan karo. saameyntii weli weyna haysataa oo waa kuwa xulafo noqday Egypt iyo Saudi Arabia iyo magaraysa Imaaraadku waa kuwa xulafo noqday waa kuwa iska xuleyfaysanaya Qatar iyo Turkiga oo lagu tuhmayo in akhwaan muslimiintii Mursi madaxweyne Maxamed Mursi uu kamid ahaa ay u xaglinayaan sida darteed waa ta Soomaaliya iminka ay xoog saarayaan labada kooxoodba meesha la yiraahdo Turkiga waa kuwa inoo sameeya ama dhakhtar dhisay cusbitaal la dhisay military xataa tababaraya maamulo ma garanaysa dekedeena Muqdisho iyo airportkiiba caruurta waxbarasho fara badan oo magaray scholarship siiya oo military badan oo saraakiil hadda lagu tababarayo anaguba ku soo arkay meesha la yiraahdo Istanbul iyo Ankara marka waxa la inagu tartamaya sidiiba wali u socda xaalku oo tartanku u socda laakiin Ethiopia Soomaaliya in xiriir gaar ah la yeelato weeyana kama maaranto wadan weyn oo 100 milyan hadda ah oo hadda ku koreeya 8% ku koreeya sanadkiiba oo Soomaaliya hadii ay in yar xataa suuqeeda hesho ay ka faa'iideyso waa samaysan inaguna waa in xeebteena weyn xoogeeno India haddaan wax ka keeno oo warshadaha India ka faa'iideysano airportadeena keeno airportadeena keeno jiidna dhisano aad baan uga faa'iideynaa marka inaga laftigeenu in siyaasad degan oo Ethiopia aan colaad u sameeyeen isla markaana aan sharafteena iswada dhiibayn in la sameeyano waa laga maarmaan si kastaba kuwa kale xoog ay noo saaraanay waan gartay Professor Xuseen bal waxaad ka warantaa markaa inta badan waxa imka soo noqnoqonaya sanadihii ugu dambeeyay webiyadii Shabeelle iyo Juba gaar ahaan webigii Shabeelle oo qalalay waxa la sheegayaa berihii hore in biyo yareeyo mooyaane inaanu guri jirin haddana saameyn kulma leh biyaha Niilka oo meel gaar ah ka yimaadaan maxaa u sababaad leedahay biyahan Soomaaliya kulba guraya horta sahraha inkastoo hadda ay qabowday bariyahan waxoogaa xiisadaas yar bari dhexdaas waxa aad looga sheekeyn jiray in webiyadaasi meesha ka soo bilaabmaan oo Ethiopia laftigeedu ka sameeyso daamam yar ama webin xirano yar ayna ka sameeyso meelahaas oo ay beeraheedii dhinaca ku sameeyso ama gudaha ahaato ama meelo kale ha ahaado ay ku sameeyaan ba aad looga sheekeyn jiray laakiin bariyahan dambe way qabowday waxaan maqlayaa inaanay aad arintaasi xoog hadda aanay u lahayn waa kan Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo arintaasi ka jawaabaya wabiyada Juba iyo Shabeelle ee dalka Soomaaliya iyo Ethiopia ay wadaagaan iyo waliba qaybo kamid ah dalka Kenya waxyaabaha ay u guraan qaasatan sanadihii ugu dambeeyay oo ah markii ugu horeysay taariikhda oo ay 3 sano oo isku xigta uu wabiga Shabeelle uu guray sanadka 2016 uu guray sanadkii 2017 wuu guray maantana wabiga Shabeelle sida la og yahay biyo kuma jiraan qaasatan qaybaha hoose ee marka uu soo dhaafo magaalada Beledweyne sababta arintaas keentay qaar fara badan waxay mataqaanaa maxaa la dhahaa lagu doodi karaa in ay cimiladu ay tahay oo roob yaridu ay keento taasi waa runtii mid la xiriirta dhinaca cimilada laakiin waxa cad oo la og yahay in isticmaalka biyaha wabiga Shabeelle ee dhinaca sare ee qaybaha dalka Ethiopia oo ka soo bilowdo uu ku dhacay in si aad ah loo kordhiyay isticmaalkooda markii la isku qabto isticmaalka oo dusha sare laga kordhiyay iyo roobkii oo yaraaday ayaa waxa ay labaduba ay noqdeen in ay guriyaan wabiga Shabeelle si joogto ah sanad ka dambeeyo waxaana muuqata in mustaqbalka dhow iyo mid ka fogbo uu mugdi kaga jiro qaybaha hoose ee dalka Soomaaliya wabiga Shabeelle in uu sidii hore uu u socon jiray uu u socon doonin taasina waxay walwal ku haysaa bulshooyinka sida xooga ugu xiran ee beeraha ku tacbada wabiga Shabeelle waan gartay marka wabigu ma biyaha cirku ku xiran yahay ma biyo dhulka ka soo baxo ku xiran yahay mise biyo meel kale ka yimaado oo hadii laga joojiyo aanay biyo soo galin wabiga ayuu ku tiirsan yahay
webiyada Jubba iyo Shabeelle waxa ay si weyn ugu xiran yihiin roobabka ka da'a buuraha dalka Ethiopia ee Ethiopian Highland la yiraahdo roobabka halkaasi ka da'a oo ah roobab aad u xoog badan ayay 90% in ka badan biyaha webiga Shabeelle iyo Jubba ay ka yimaadaan haddii marka ay roob yari ka dhacdo dhulka Ethiopia buurihiisa oo ay webiyadaasi ka soo bilowdaan iyo haddii ay dhacdo in isticmaalka dhinaca kore ee webiyada la kordhiyo labada arrimoodba marka waxa ay sababayaan in socodkii biyaha webiyadu ay yaraadaan amaba ay guraan sida hadda aan arkayno marka mabdi'iyan biyahaasi ay wadaan labada webi ee Jubba iyo Shabeelle waxa ay si buuxda uga yimaadaan dhulka buuraha Ethiopia guud ahaana barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadku waa naga intaa waa anigoo Sahre Ciidla Nuura oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo